daawada ma ogtahay inay jiraan Soomaali badan oo daneynaysa inay fashilanto dawladda curdinka ah ee uu hogaaminay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii dib loo doortay 15 May madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa jira mucaarad badan oo isugu jira mid siyaasadaysan mid qabiilaysan iyo mid dana gaar ah ay hoosta ka riixayaan haddaba waxaysan dadkaasi ogeyn fashilka ku yimaada dawladda Soomaaliya inuu yahay fashil ku yimaaday dawladda qarannimada Soomaaliya taas oo ka dhigaysa dawladdu in la jaan qaadi weyso wadamada horumaray isla markaasina dawladda Soomaaliya ay gacanta sii horsato dawladda shisheeye oo ku faraxsan jabka ama dhibaatooyinka Soomaaliya ujeedka warbixinteenu maaha in dawladda ku taageertid gar iyo gardarraba balse waa in muhiimad gaar ah ay kula muuqato taageerista wadankaaga daawade dal walba oo horumaray waxa gacan ka geystay isla markaas horumarkaasi ka dambeeyay shacabkiisa haddaba qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo mikrofoonka la dhex qaadnay ayaan ka weydiinay siday u arkaan waxyaabaha ka dhalan kara Soomaalida sugi karila inay dawladoodu fashilanto dadkan dawladda Soomaaliya oo curdinka ah oo hadda xalliga la soo doortay oo si dimuqraadiyad ah loo soo doortay dadka isla markii iyada dil xumo iyo xalliga xumaan inay fashil ay ku timaado dawladda waxa waa dad shisheeye wax ka soo qaatay dadkii hore ugu fashilmay oo amnigeeda ku fashilmay oo dawladnimada ku fashilmay dadkaas waaye dad xalliga oo dal shisheeye anay u adeegan rabaan ana dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda intaba aan rabin marka waxaan leenahay muutu biqaydikum aradiina u dhinta waxa la yiraahdaa madaxweyne way arag ah madaxweyne oo wax ka yaqaano dawladnimo ayaan helnay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa in dadka fashilka iyo dhibaatada iyo dilxumada wado in uu ilaahay naga qabto oo xal yiraahdaa dawladda wasiiradeeda iyo ra'iisul wasaaraheeda waa dad xal yiraahdaa u qalmo inay wadanka ay dhibtanka ay ka bixiyaan waxaan u arkaa dadkaasu waa dad in ay rabaan wadanka oo meel shalay oo ka yimid oo laga keenay in ay dib ugu celshaan rabaan ra'ligayga hadii aan ka dhiibtana waxa way dadkaas waxay yihiin waa dad qad wadayaal ah oo wadanka inay dib nooga celshaan rabaan shalay ninka wadanka aan joogin ee ka maqnaay ee maanta yimid kii shalay joogay in wax laga weydiiyo aan mudan shalay aniga waxaan u soo joogay wax badan aan u soo joogay maanta hadda ma la joogo alxamdulillah waa meel fiican waa meel heer sare ah shalay waxaan u soo joogay aniga shakhsi ahaantayda ah ruux loo dilaayo heer hebelaatay taasuna waa dhamaatay oo isbedel badan ka dhacay haddii ay kaceen dhalinyarada iscil qaantay oo magaaladan u soo halgantay oo 2006 oo isbedelka la helo hogaamiye ku xid dhowr iyo inta isbaaraatiil haddii mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo yimid oo markii koobaad oo kursiga qabtane isbaarooyinka beledkiisa waa la wada qaaday haddana mar labada hadoo soo noqdana waxaan rajaynaa waxyaabahan dhibaatooyin oo jiro oo khilaafaad ha ahaado amba dadka kala ra'li duwan ha ahaadaane aniga ra'liga aan qabo waxay tahay inuu isbedel weyn oo sameey doono tii oo naga ballan qaado Soomaaliya heshiisa dawladda heshiis ah waa taas waa rajaynaa marka waxaan inta fariin kale aan ugu diraa walaalahay Soomaaliyeed xilka ilaah baa baxsho ciidamo bixiso qabiilna ma baxsho qabqabna wax lagu ma helay waxa loo fiican yahay waxa la rabaa in ilaahay la tala saarto oo aan fiirino biri waxa aan qabsan doono ee aan la fiirin shalay wixii laga yimid marka Soomaaliyeey aan iscafis weyn aan iscafino aniga aan ugu horeeyo intii waxay ka sheegtay amba dib igeysatana cafis ay ka tahay Soomaalidana aan iscafiyaan muhiim aan kitaabka Allah iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam aan qaadano aragtida ah dadka qaba dawladdu waa fashilantay aan isleeyahay wax ay soo kordhiyaan ma jirtee waa wixii caadada Soomaalida iska lahaan jirtay oo iska degdeg ahayd dawladdu hadda cusub tahay welina hadda dhalisheeda lama gaarin marka waxaan leeyahay dhalishu waa iska imaan doontaa waqtigeeda aan la sugan maxaa yeelay wasaaradii hadda la dhisay dawladdu hadda cusub tahay marka inaan bala sheeg noqonana waa laga fiican yahay waxaan leeyahay dadka Soomaalida khayr ha rajaysteen dawladdoodana wanaagii horumar ka rajaysteen
إن شاء الله أنا أركتدي دولة هوري وسعتها وحول بانا سيد الله مالين السكة في عمي أي نقول الوقت هذا لما جارنا مامور بس مرة ولا اللي سوى الوقت هذا اللي جاره ويقول لي وزير هذا العاصي اللي ما دافعنا وسافر كيس وسكبت طيب هذانا اللي وقت هذا لما جارنا ولا ليه كانوا يوقف السنتو اللي لما جارنا لا يعني أهم هو وقت فيك كيسا كان لوا لكن بالنسبة لي أنا أقول يوقف السنتو ما ليه كانوا لكن وقت هذا اللي جاره ومركي أهل سنة مثل وقت هذا اللي جاره ومركي ما دافعنا وهي وقت كذا لا لكن تقول لي وزير هذا سبيل السماعة عشان قرنا اللي كروا واقف السنتو لكن